degmada Celafin ee gobolka Sanaag ayaa lagu wareejiyay gaari ambalaas ah. Madasha lagu wareejinayay gaarigan ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdigii golaha wasiirada Somaliland ee nabadeynta u joogay deegaanada gobolka Sanaag. Waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay Mukhtaar Saleebaan Xaaji Yaasiin oo wakiil ka ahaa Naa'il Al-Shamsi oo ku deeqay gaarigani. waa maalin farxadeed aniga Mukhtaar Saleebaan Xaaji Yaasiin waxa sharaf iyo maamuus iyo karaamo ay noqotay inaan gaarigan soo bixiyo 20 ku wareejiyo wasiirada uu hogaaminayo wasiir Maxamed Kaahin gaarigaas oo lagu tabarucay niman muxsiina ugu tabaruceen degmada Celafweyn si ay u kafayso baahida caafimaad ee degmadan iyo magaalooyinka tuulooyinka ku xeeranba looga hawlgeliyo. iyaguna hadallada waxaa iska daba qaatay intaasi kadib isuduwaha caafimaadka ee gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Celafweyn oo mahadnaq u jeediyay cid kasta oo gacan ka geysatay hawshani. waxaan maanta halkan kula wareegaynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sanaag gaari ambulance ah oo nooca casriga ah oo loogu talagalay gargaarka degdega ah inuu gudbiyo. marka hore Ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa ta'ala. mar labaadkana cid wala oo ka soo shaqaysay in gaarigaas uu soo gaadho goobtii iyo goortii ugu habboonayd ayaan uga mahad celinaynaa. waxaanu si kal iyo laaba oo mar labaad iyo mar saddexaad baan uga mahad celinaynaa muxsinkii gaariga ku deeqay in loogu adeego cid kastoo jilcisan hooyada iyo dhallaanka ay ugu soo nugul yihiin oo magaciisa la yiraahdo waa Naa'il Shams al-Imaarati. aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. waxaanu leenahay wax la bixiyo la sadaqadaysto wixii ugu fiicnaa ayaad soo dhiibtay. waxaan u mahad celinaynaa oo si kaliya laaba ugu mahad celinaynaa Naa'il Shamsi iyo muxsiniinta kale ee gaariga kan aad iyo aad u qiimo badan ugu tabarucay ummadda reer Celafweyn waqti loo baahnaa iyo baahi jirtay aad iyo aad ugu muhiimsan ummadda tan. ugu dambeyn waxa goobta hadallo bogaadin iyo mahadnaq ah ka jeediyay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed, la taliyaha madaxweynaha arrimaha siyaasadda Cali Maxamed Waran Cadde. waxaanay mahadnaqan u jeediyeen cid kasta oo gacan muuqata ka geysatay baabuurkan gaar ahaan Naa'il Al-Shamsi oo ku deeqay gaarigani. sidoo kalena waxay ku booriyeen bulshada iyo maamulka degmada Celafweyn sida ay u ilaashan lahaayeen baabuurkani. waxaana ka mid ahaa mas'uuliyiintani hadalladoodii. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Mukhtaar oo hawl aad iyo aad u wanaagsan ka soo shaqeeyey oo kala soo shaqeeyey mas'uuliyiin manaasiib sare ka haysa dalka Imaaraadka Carabta oo gaarigan ambulanska inaga dambeeya oo degmadan Celafweyn loogu deeqnay soo qalqaaliyay soo diyaariyay. waxaan marka ugu horeysa ugu mahadnaqaynaa Naa'ib Shami oo halkan Somalilandna inagala shaqeeya mashruucan maxaan ku raahdaa corridorka oo kambanigiisa bilxurmo uu qayb weyn ka qaadanayo iyo mas'uuliyiinta kale maxaan ku raahdaa mandaqadooda joogta Rashid Al-Mansuuri iyo Ahmed Rashid Al-Mansuuri. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. kuma cusba hadda inay maxaan ku raahdaa mucaawinooyin samafal ay keenaan Somaliland gaar ahaan gurmadka caafimaadka ambalaansiyada. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan iyo baahida halkan looga qabo inay maxaan ku raahdaa dhamaystirayso. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Mukhtaar. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. من القلب وجه الكلمة الشكر مشفوعة بالامتنان والتقدير إلى صاحب الأيادي البيضاء أهل الخير والوفاء الإخوان النائب الشايمي وأحمد راشد وجميع الإمارات الذي تبرع سيارة الأسعاف أسعادا ودعما ومساعدة إلى إخوانه في مدينة علفوين في جمهورية الصوماليلاند. لقد وصلت مساعدتكم إلى من هو بأمس الحاجة إليها. نسأل الله أن يجعل تبرعكم السخي في ميزان حسناتكم ويضاعف الله لكم الأجر والمثوبة
وجزاكم الله خيرا جميعا. سيدا ugu faraadayga lahaydeen ugu adkayn lahaydeen oo ugu shaqayn lahaa mandaqada ballaaran inta la eeg idinka idin saaran tahay aad waxaan ugu mahadnaqaynaa cid alla cidii ka soo shaqaysay. أولا نشكر دولة الإمارات الشقيقة شعبا وحكومة، وثانيا نشكر نايل الشمسي وأصحابه بإهداء سيارة الإسعاف لأهالي محافظة عيل فوين في جمهورية سومالي لاند. إن تبادل المعونات ومشاريع التنمية تقوي العلاقات الإخوية والسديدة بين جمهورية أرض الصومال وجمهورية دولة الإمارات المتحدة. وشكرا.